islaha koox ka soo jeeda Sacuudi Carabiya ayaa ka adkaan doonta mid ka mid ah kooxaha ugu adag qaaradda Yurub habeenkii qawowga ee magaalada Orlando. Dabeelo yar oo ku dul socda garoonka weyn ee Campbell Wall Stadium waxa dhacday mid ka mid ah dhacdooyinka ugu yaabka badnaa ee taariikhda kubadda cagta FIFA Club World Cup. Waxa la arkayay kooxdii loo saadalinayay inay koobkan qaadayso Manchester City iyo koox ka soo jeeda Sacuudi Carabiya ee Al Hilal. Dad badani waxay filayeen ciyaar furan, laakiin midaasi waxay isku bedeshay qisas lama filaan ah. Markii seeriga ugu horeeyay la yiri City waxay bilaabeen inay kalsooni leh kubadda u ciyaaraan. Kubadda waxay ku jirtay lugaha ciyaartooyda Pep Guardiola. fursado isdaba joog ay helayeen. Ruben Dias ayaa madax ku dhuftay goolka, Safinio ayaa shabaqa ku sigay. Ilkay Gundogan iyo Duku waxay heleen fursado kale, laakiin waxa City ka hortaagnaa fursadahaas oo idin hal nin, Yasin Bouano, goolayaha Al Hilal. Wuxuu ahaa geesiga aan la garanaynin, badbaadin uu sameeyay markii uu dhulka isku tuuray si uu kubadda ugu hor istaayo. Safinio ayaa ah mid ka mid ah kuwa lagu xasuusan doono ciyaartaas. Inkastoo Al Hilal si weyn u difaacanayeen, City waxay heleen goolkii furitaanka. Bernardo Silva ayaa dhameystiray kubad ku dhex wareegtay xerada ganaaxa. waxaa jiray cabasho ku saabsan in kubadda taabatay gacanta Ryan Al-Nouri, balse garsooruhu waa uu ogolaaday goolka. Markii la aaday qaybtii nasashada, City waxay u muuqdeen inay si raaxo leh ugu sii socon doonaan wareegga xiga, laakiin waxaa la isku soo laabtay qaybtii labaad oo la magac baxday beddelkii sheekada. waxaad ogaataa kubadda cagta weligeeda ma raacdo filashooyinka. qaybtii labaad ayaa mar qura isbedelay wejigeedii. tababaraha cusub ee Al Hilal, Simone Inzaghi, wuxuu xidigihiisa ku yiri aamina naftiina waa aynu rumayn karnaa. 43 ilbiriqsi kaliya markii ay ciyaarta dib u bilaabatay, Joao Cancelo oo horay ugu ciyaaray City ayaa kubadda keenay garabka, taasoo Marcos Ronaldo uu madax ku dhaliyay, waxaana durba garoonka laga dareemay weji cusub oo ciyaar ah. kadib 4 daqiiqo oo kaliya, weerar degdeg ah oo hormuud u ahaa Malcom ayaa keenay goolka labaad ee Al Hilal. City waxay isku bedeleen si degdeg ah. Erling Haaland ayaa daqiiqada gudahooda ka jawaabay, isagoo ciyaarta ka dhigay 2-2. Al Hilal waxay heleen fursad kale. Malcom ayaa mar kale si xawli ah ugu dhaxbaxay difaacyada City, waxaana qabtay Ruben Dias xerada ganaaxa dhexdeeda. waxay u muuqatay rigooro, balse calanka offside-ka ayaa badbaadiyay City. ciyaarta ayaa noqotay dagaal labada dhinac oo nasasho aan lahayn. City waxay ku fiicnaayeen baasbaaska, balse markastoo ay lumisay kubadda waxay la kulmaysay cawaaqibteeda. Maxamed Kan wuxuu ku sigtay inuu madax ka dhaliyo. Nasir Al-Dawsari sidoo kale wuxuu ku dhawaaday inuu shabaqa haleelo. markii waqtigii rasmiga uu dhamaaday, waxay ahayd ciyaarta 2-2, waxaana lagu daray waqti dheeri ah. waqtigii dheeriga ahaa wuxuu la magac baxay geesiyaashii cusub iyo guurdalo lama filaan ah. waxaa la galay 30 daqiiqo oo dheeri ah. Al Hilal ma aysan iyo jabin. Khalidou Koulibaly oo horay ugu soo ciyaaray Premier League naadiga Chelsea ayaa madax ka dhaliyay goolka saddexaad. City mar kale ayay ka jawaabeen. bedeladii Pep oo Ryan Cherki iyo sidoo kale Phil Foden ayaa sameeyeen isfahan cajiib ah, taasoo dhalisay goolka barbaraha ee 3-3. laakiin ciyaartu ma aysan dhamaanin. daqiiqadii 112, Marcos Ronaldo, geesiga haweenka, ayaa si xaraga leh kubadda ugu celiyay shabaqa kadib markii uu Savage madax ku toogtay goolka. Henderson oo kubadda ka soo tuuray. markii seeriga ugu dambeeyay la yeeriyay, ciyaartooyda Al Hilal waxay dhulka la dhaceen iyagoo ilmeynaya farxad awgeed. ciyaartooyda City waxay taagnaayeen garoonka dhexdiisa iyagoo wejigooda ay ka muuqato niyad jab. guusha Al Hilal waxay ahayd mid ka baxsan ciyaar kaliya, waxay ahayd fariin cad oo u dirayeen adduunka kubadda cagta. manihiin koox lacag raadisa, waxaynu nahay mid awood leh. Savage oo ka soo tagay Lazio oo ku biiray Al Hilal wuxuu yiri hadda yaanu la cambaaraynin, yaanu lagu tilmaamin koox qaadatay kaliya lacagta. waxaan tusnay sida aan u ciyaari karno. Real Madrid, Salzburg, Porto iyo City dhammaan waa ay la dagaalamnay, waxaana rajaynaynaa inaan sii wadno dagaalka.